أنا هرت قيان كسالة أبي dadka waxay dhahaan qofka markay weynaato qoyaan aa ka baxay ani kontii kow sano ahay qoyaan miiga bixin okay dareen weligay baa iska dareen fiicnaa ma fahanti okay weligay anoo gudana dareen fiicnaa gudinka iyo dareenka ma baabi'iyo moogtahay laakiin waa kala duwannahay gabadha gudan iyo midda aana gudnayn kala system waaye dhanka oo dadka bani aadankaaba different u kala dhashay dad waxaa jirto maxaa la haddana gabadha markay gudan tahay dhahaa dad loo waxeedii oo dhan koray jiraan moogtahay haddii wixii dhex galaan xataa hadday dhex galaan waa intoo galo wixii kalena kor ay joogaan ma fahantay marka system kale u baahan tahay ma fahmino nimanka dhanna ma yaqaanin systemkaas sababta ma arkin oo gabdhaha soomaalida oo dhankaas cilada ugu haysana sababtaasaa ugu wacan waayo wiilka soomaaliga ma fahansano gabadhan gudan inay u baahan tahay waqti badan ma ka fakarayaaba ka horeysa because ani nimankan saa u arko iyaka dantooda keliya intay samaystaan nalka iyo dami maxay ku imaatay inuu marada kaa qaado gadaal kaa maro markuu dhammaystana dhinaca kale inuu isku gediyo rabaa maya amore nalka iyo dami meesha ka imaata anaa kuu sheegaya taas ninka soomaaliga hadduu nal shidan yahay xataa uu ku haysayaa wuu jecel yahay oo maska xishoonaya ina geedkiisa nalka dami fiir amore nalka dami anagay naga imaataa fiir gabar jirkeeda ku qanacsan ma arkino nalka mabadansato idoo qaaban ninka agtiisa ku laafiyota idoo qaaban waaya nalka dami saas aan uma ogaan haye ala ku dhahay adiga hadda hawr fiiri adiga gaayga ma kula joogo Mrs. Dabosha haddii hoose xataa abdaltin caadi adoo qaabana xataa musqash iska sii aaday hadana sirta ku soo noqay ma fahanti waxa keenay qanaacada keenaysa jirkaaga qanaacada aad ku haysat ma fahanti bahashaasna sideedaba nalkay ku fiican tahay qofka aa wax la sameynaysid indhiin waxaan sameynaa ina arkaan baabe maxaa haddii kale indhaha faraha iska gelinaysiin ani waxaa u malayn jira naagta wax badan iyo ku weydiinayna nalka inaad damisid excuse ka dhig inay ahayd maya anagaa dansana nalka haddana maxaa u cabaadaysiin marka nalka fiiri nalka anagaa dansano ee just dhibaatada jirtaa waxay tahay wiilasha soomaalida dhankaas way ku feelgaroobeen kase kii xataa ma arkino oo hoosta ka nool xataa ma yaqaano sida geedkiisa loogu shaqaysto wax iska weyn loo iska wataa maayne alla iska siiya maayne ma garanayo meesha laga maro iyo sida loogu adeegta xataa ma yaqaan wuxuu u maleeyaa keliyabo jawigan oo dhanba oo sariirta inuu yahay in wax laysgelgelsho wax gelgeliskaasoo buxooba u maleeyaaba in galmo la dhaho ina ciyaar shakili naagta dhihi jirta intii jukuli laga sameyn inay sameeyaan ma rabaan ahaa marka waxay leeyihiin firi barta galmada ma aha gilgilis maaha qaf u baahanna ma jirto galmada istiin waaye kala gidis waaye istaabasho waaye isdareen waaye gacno adagoo laysku xajiyo qofkaaga inuu ku dareemo inaa haysid nin ma gacanta igu haayo ninkaa tahay in gacantaada laga fahmaa la rabaa marka wiilashan soomaalida aan markaa fikirine waxaa isleeyahay hawr yar anaga kusoo korina jiljileeca saasaa isleey may fiiriyaa dhaqanka naftirkiisa fiiri meel oo laga hadda fiiri anaka dad badan hoos jooga waxaan ku hadlayna ceeb ay u arkaan laakiin educationka meeshuu ka bilaawdo meeshay dadka hadday ka wada sheekaysan karaan markaasaa wax laga bartaa even like sakhajaanimo iidoo ahayn qof inuu ciwaan soo furto oo galmada saxda iyo galmada khaladka dadka uu u kala sheego ceebaa loo arkaa maxay tahay hash guriga markaan aadna aan isku barbarano fiiri ceeb maaha in laga sheekeeyo way wanaagsan tahay fiiri habreer aniga markaan yaraay galmada maba kaseeninbo galma maba aqooninbo 16 sano jira wallahi inaan galma kaseenin ilaahay isinka galma aqoon xataa geedka soo u yaala xataa inaanan aqoonin waa lagu barnaqaay xataa anima ogeed maanta la guursaday shooga aan qaaday ilaahay ogay wallahi waa bilaa tala absi waa وأنا إسكت صار جربه نيو برت قلاشين تان لقى بيحبر إمودو يصير محاول برتان أنت كجرته قسم بالله
geedkii aad Gabadhii. kula naqday gabadhii waagi hore dadka waaweynka hadeertaan gabdhaha oo hadeertaan wax kastay ogyihiin laakiin aniga xilligayga no 16 dadka waaweynka markay sheekaysanayaan waana la buri jiray 16 sano oo internet arkin meel waana la wax buri kamarna jiray arkin xitaa fiiri dadka waaweyn markay hadlayaan ka kac meesha naaya aa lagu dhahaa walaa dadkaas xaqaala gabadha markii la guursado waxay tegay iyadoo indho xiran iyadoo waxba ogeen ay ninka uga aqalgale yaa waxaan dhahay birtaan gadaashaan ku jirto iga bixi biraan mudoyse lana soco jaro bir maba ahaba geedkayga waaye aniga waa fariistaba bismillaahi jiro ma kaaga dhacday makaa jiran yahay maxaa kaaga dhacay saan maxaa ka dhigay oo aad maxaa malaynaysa waxa inuu u yaalo sida kale naagaha maba ogeen be maxaa kaaga dhacay wallaahi awrire asa ii fasire waxaa dhahay saan waaye aniga waxaa iska dhigaysaa naag fiican darbiyada lagugu soo qori jiray war waxaan dhahay aniga nimankaa la dheelaa derbiga baabeena iigu soo qoraan soomaaliya waxaa jiri jirta waaga hore intay gabadha markay wiilasha la ciyaaraysa ani wiilasha la ciyaari jiray banooni hadday tahay kaalfoota hadday tahay geed talaalka la koraayo waxaasoo dhan derbigaa laygu qori jiray marka heblaa Magacaaga? wasaa waxaa waso hebelaa waso alaygu qori jiray geejiniga geed talaalka ma arkino jeesta wax kasta iigu qorayaan war waxaan dhahay waxaan ma aqaaniyaan dhahay dadkaa waxaan dhahay iga isqorqorayaan dhahay waxaas ani waxaan ma aqaaniyaan dhahay ee hawshaan waxaan dhahay saan miyaan dhahay markaasuu yidhaha saan wayo dhahay nimanka wuxuu dhahay markii dareen la qaado geedkooda waa istaagaa anigana bira uma leeyahay marka laakiin ana asi naftirkiisaan ku xanaaqi lahaa adiga naftirkaaga maxaa saas ugu maleysa kulaha laakiin nina daala dheelo qasab miyaa intay wax igu sameeyeen yaa asaaba dood usii qaadan lahaa ku dhahay ها ما يوحوا ما ياه فيري هذا أنا الصومالي ولا asina kooyariis mu ahaa mase nin weyn u ahaa صومالي ذا فيردي قداش هذا ما فيريان قف كان محكم دنبي ما فيريان صومالي ذا دتك وحكو حكومان just إن هذا الشيء جاء ستوري ذا دون أديك أنا يحكو حكومينايا oo yaa waxay Maxkamadda ku geynayeen. intay afkaaga ka arkin laakiin ficilka intay ka arkaan ma sugaya dhagtooda waxay qof kale ay kusoo dhibcisay aa lagu qaadanaa ها فاهم laakiin su-aalaa ku weydiiyey kaas ku yariis mu ahaa masuu kaa weynaay wiil oo markino xaafad aku soo korno waaye oo ما شاء الله kaasi naftirkiisa wiil yar ahaa naftirkiisa aduu kugu berberinayo ها marka adiga da loodka igu weyn oo hayaan jeclahay aniga fahamtay laakiin fiiri mid oo waxaa jirto mataqaantaa hadda saa sheegaysid naaga badan oo waxaa jirto iyo kooyariisaa la guuriyey maybe ninkii kow maxaa la dhahaa asaa ninkii koowaada number 1 uu ahaa ninkaas unbay taqaanaa hadday kala tagaan weli sidii u indha xiran tahay maybe ninkaas naftirkiisa inuu wax aqoonin maya saas ma aha gabadha soomaaliga habar yar waa dhibaatada jirta waxaa waaye badanaa gabdheena soomaaliga ma naqaano kabahaaga qaado ee hore u soco ma ka seeno gabadha soomaaliga ninkii furay ee weli meel u fadhida ninkii furay ee ilaa iyo hadda ee u libisanaysaa ee rabtaa inay weli jaloosiye iyo jinni ee ka daba shaqeeyeysaa inuu usoo noqdo nafsad ahaanteeda ma jeclo gabadha soomaaliga inay iyada nafsad ahaanteeda ay u raaxaysato ee waqtigeeda qaadato ay ku fikirta ay dhahdo alla ilaahay calafaa dhammaaday ninkan oolaadana ilaahay idinkala siiyey shalayna dad wax isjeclo ayadeen maantana tii walaaltinimadii ilmaha idinka dhexaysa ma taqaanee ilmaheeda ayay waxay ka dhigataa hub ay ka dhigataa makase ma taqaana inay hor u socoto dhibaato waa taas gabadha ma arkin oo ku dhahayaan 10 sano garoob ah aniga 10 sano wax garoob iga dhigaayo maxay tahay aniga hadda anigoo kale daas soo qaado abadeer ani yaraantii markaan guursaday kadib ilmahayga aabahooda is guursanay anoo dibadda joogo 20 jir cunugayga ku dhalay 9 cunug aniga soo dhalay okay kan koowaad kii koowaad ma kii koowaad aniga uura u yeeshay uurkaas aniga iyo naag oo abtigiis qabay waxaan isla cunnay malab oo beerteena laga keenay aan cunnay miskiin labadeena baa naga soo bixin ilmaha fahant marka ka labaadaa 9 ku dhashay 9 cunugaa u dhalay markaan kala tagnay aniga lugtaan furay waa guursaday gadaashiisa 7 ninaa guursaday
ها